dhalinyaradii gobolka City oo ka biyadiiday shirkii Awaash ee Soomaalida iyo canfarta lagu dhexdhexaadinayay oo dawlad ku sheegta cagjar been aan waxba ka jirin oo waa lagu kala kacay suuqa soo gashatay balse si qarsoon u sixiday in dhulkaas canfari leedahay isla markaana ay dawladda cagjar warbaahinta iman weyday oo shacabka deegaanka la wadaagi weyday wixii dhacay ayaa waxay dhalinyarada gobolkaasi isu xilqaameen inay jaraan jidka muhiimka ah ee isku xidhay Itoobiya iyo Djibouti iyagoo xalayba shaqadaas bilaabay furfurayna wadada tareenka si ay Itoobiya u dareensiiyaan inay Soomaalida gobolka City tahay mulkiilayaasha iyo xaqlayaasha dhabta ah ee dhulka galbeedka gobolka City. dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka deegaanka canfarta ayaa laga soo sheegayaa inuu si shaac ah u yidhi dhulka ay Soomaalidu ula baxday gobolka City oo dhan waa dhul canfareed taasoo gaf iyo meel ka dhac ku ah ummadda Soomaaliyeed dameer xumo damiinimo iyo damqasho la'aan ku ah maamulka cagjar oo ugu yaraan la rabay inay mas'uul ku sheegan noocaas u jawaabaan ilaa gadhba la tusaayo waxaa kaloo maamulka cagjar dulinimo ku ah inay mowqifkooda shirka Awaash u cadeyn waayaan ummadda Soomaaliyeed ay kuraasta ku matalaan kuwaasoo ay dhalinyartoodii iyo ciidankoodiiba ku xasuuqeen muddo 3 sano ah dagaalka canfarta dhalinyartan wadaniyiinta ah ee isxilqaantay dhiigga Soomaaliyeedna ku jiro ayaa waxay sheegashada canfarta ee gobolka City kaga jawaabeen inay Soomaaliduna leedahay magaalada xarunta ah ee deegaanka canfarta ee Samara annagu waan dhimanayna dhulkayga dhiig ba ka horeema ina ma yeelayno hata haday ay canfari sheegatay er annaguna waxaan leenahay Samara شفتها هواش بين نوغو جوجتا waxaa dalalkii ay ka shaqeynayeen iska dhiibay safiiro badan iyo shaqaalihii safaradaha iyo qunsuliyadaha Itoobiya ku lahayd caalamka tan iyo intuu Abiy ku dhawaaqay in ugu yaraan 30 safaradood uu soo xidhayo qaarkoodna uu albaabada u soo laabay isagoo u sababayay kharashka malaayiinta dollar ah ee safaradahaas ku baxaya inuu uga muhiimsan yahay shaqada ay hayaan dibna iska laba rogay oo sheegay in COVID-19 dartiis uu safaradahaas iyo cilaaqaadkii dunida soo xidhay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ayaa warqad ay u qortay safiirada iyo shaqaalaha safaradaha wadamada ay ka go'aan qaadatay inay xiriirka u jarto iyadoo ka codsanaysa inay soo galaan Itoobiya oo soo laabtaan oo shaqadii safaradaha ay ka shaqeynayeen sheegay inay gudaha Addis Ababa ka wadi doonaan balse koox safiirada safaradahaas ka mid ah ay dalabkaas ku gacan saydhay iyagoo sheegay inaysan macquul ahayn inay xilligan wadanku qalalaasaha ku jiro ku soo laabtaan halka shaqaalihii safaraduhuna dhammaan dhagaha ka fureysteen oo magangeliyo siyaasadeed weydiisteen dalalkii ay ka shaqeynayeen Usana Kidane safiirkii Itoobiya u fadhiyay dalka Algeria caasimadiisa Algiers ahaana diblomaasi sare oo dalkaas in badan Itoobiya uga shaqeynayay ayaa go'aanka dawladda Abiy ee xidhida safaradaha ku saabsan gaar ahaan midda Algiers ku tilmaamay mid lagu degdegay aadna uga naxay oo uga xumaaday balse uusan shaqada joojinaynin oo uu halkeedii ka sii wadi doono dhagna u dhigaynin go'aankaas waxa uu heliyaa safiirkii Brussels u fadhiyay Itoobiya oo isagu gebi ahaanba diiday in isaga iyo reerkiisu ku soo laabtaan Itoobiya sheegayna inuu shaqada wareejinayo safaaradana xidhayo laakiin uusan marnaba ku soo laabanaynin dalkiisii isagoo sabab ka dhigtay in isaga iyo ubadkiisuba khatar amni galayaan haddii uu soo laabto dhammaan shaqaalihii safaradaha kala duwan ee caalamka Itoobiya u joogayna way ka sarrigteen yeeritaanka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ee soo laabashada ah shakhsi kastana dalkii uu joogay buu iska dhiibay sida ay BBC-da laanta Axmarigu xaqiijisay